بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، dhammaan muslimiinta ee maqlaysa ee risaaladan ay soo gaadha waxaan u dardaarmayaa cabsida rabbi subxaanahu wa tacaala. kelimadaas ay tahay kelimo xaqa muslimiinta inay isu sheegaan oo isu dardaarmaan. intaas haddaan ka gudbo, waxay risaaladan xambaarsan tahay ama fariintan ay xambaarsan tahay khabar weyn oo naga soo gaadhay gobolka goday oo ah gobolada ugu waaweyn ee Ethiopia gobolada ka jira gobolka ugu weyn ah. gobolkaas isaga ah culimadii joogtay iyo waxgaradkii joogay iyo dadkii joogay dhammaantood waxay kasoo khabar garaariyeen oo khabar ay ka keeneen oo qayladhaan ay ka keeneen in macadkii islaamiga ahaa ee magaalada goday uu u baahan yahay in la dhiso, oo ummaddii waxbarasho u baahan tahay, oo caafimaad u baahan tahay, oo ummadda ay u baahan tahay in tayadeedii kor loo qaado. sidaa darteed waxaa dhacday maalin dhoweyd in culimo fara badan oo uu ka mid yahay sheekh sulub macallin qorane ay telefoon igula soo xiriireen, iyaga oo yimid magaalada Jigjiga, qayladana waday, khabarkana isoo gaarsiiyeen, kana hadlahayeen dhibaatada iyo baahida ka jirta maanta gobolka goday. baahidaas jirta iyadoo gobolka dhammaanta ay ka jirto, haddana khaasatan gobolka iyagu ay joogeen, baahidii ka jirta ayay soo gudbiyeen oo ahayd waxbarashadii diiniga ahayd oo hadda ka hor culummada islaamku intay wax ka bilaabeen istaagtay, duruuf u istaagtay, kadibna haddana intii ururka Soomaali galbeed uu soo laabtay, dib u curasho sameeyey. waxbarashadaasi ummaddii waxay u baahan yihiin, ummaddii baa la hayaa meeshii markii wax lagu bari lahaa iyo dadkii wax bari lahaa iyo tayagelintoodii iyo habeyntoodii baa maaragtay loo baahan yahay. maxaan markaa ugu dhawaaqaynaa dadka muslimiinta ay maqlaya, khaasatan kuwa u dhashay gobolka goday? waxaan leeyahay ilaah subxaanahu wa tacaala intii laga cabsado, dadka muslimiinta ee meeshaa jooga ee masaakiinta ah, meelay wax ku bartaan ha loo yagleelo oo ha loo dhiso. khabarka iyaga markuuna soo gaadhay kadib, culimmadii iyo maareeyihii macadka oo sheekhaa soo sheegay magaciisa ahaa uuna soo gaarsiiyey, waxaan bilownay wadahadal ama contactina dhex maray culimo fara badan oo qaar ay joogaan UK, qaarna ay joogaan gobolka Denmark, qaarna ay joogaan Sweden. waxaana soo baxday oo la isku afgartay qof kasta oo u dhashay mandiqadaas iyo gobolkaas inuu fadhiga ka kaco, rag iyo dumarba, arrintaa loo tafaxayto, macadkaa la istaajiyo, iyadoo laga bilaabahayo min 1 ilaa 12 galaas la dhisahayo, galaaska 1 ilaa galaaska 12aad, iyo qaacadii weyneed ee mu'tamaraadka iyo muxaadaraadka iyo shirarka lagu qaban lahaa, iyo baahida kale oo jirto ah waxbarashadii dadkii waaweyneyd oo iyagana loo baahan yahay meesheed in la yagleelo oo la aasaaso oo la dhiso. baahidaas oo dhan culimmadu markay soo ururiyeen waxaa lagu qiyaasay lacag gaadhaysa, markii hore waxaa la soo dejiyey lacag gaadhaysa $100,000 inay ku baxayso. lacagtii markii la qaabeeyey guddigii loo xil saaray ma aysan dhicin waajibaadkii iyo barnaamijkii ay qaadeen inay maaragtay fuliyaan. waxa la soo xidhiidhayba kadib baa haddana la isku noqday. waxaa la yidhi maadaama oo kii weynaa aada moodo xoogaa inuu hadda inoo suurageli laayahay, bal si deg deg ah ha loo sameeyo khabarkana ummadda muslimiinta meel kasta ay joogta ha la gaarsiiyo, in macadkii la yagleelo oo la qiimeeyo, oo bal wax lagu sii sugo, ummadda wax lagu sii baro. dadka hadda wacadka dhigta waxbarashadiisu waxay gaadhaysaa 378 baa koley la igu soo diray email. dadka marka isaga dadka sugahayana intaas waa ka badan yihiin oo meel loo laayahay, guri kira ayna ku jiraan. marka dowladdu dhul bay siisay, dhulkii markii la siiyey macadka ayaa la rabaa in la dhiso oo qof waliba uu ka qayb qaato oo muslima, ku u dhashay iyo ku aan u dhalanin intaba.
khaas ahaan dadka u dhashay waxaan leeyahay mandiqada rabbi subxaanahu wa tacaala kaga baqa meeshaad ka imaateen aad ku dhalateen macadkaas diiniga ah iyo dacwada islaamiga ha laga qayb qaato oo macadkaasi ha la dhiso khaas ahaan anagu markuu khabarkuna soo gaadhay waxaan ka socdaal baanu soo galloonu bilownay waxaana ka bilownay magaalada Göteborg ee dalka Sweden waxaanu u nimid jaaliyadii u dhalatay mandiqadaas Göteborg deganeed ka soo jeeday mandiqadaas gobolka Goday runtii si fiican bay noo qaabileen noona soo dhaweeyeen intii karaamkoodii awoodoodan aad bay u dadaaleen waxayna mudan yihiin dhammaan dadka muslimiinta ee maqlahaya iyo jaaliyadka u dhashay gobolkaba ummadaasi inay ku daydaan waxaana fariintanada gaarsiin doonaa haddii alla yiraahdo dhammaan caalamka intaan ka gaari karno sida America, Australia, South Africa iyo Carabaha intaba waxaanu leenahay barnaamijka ha laga qayb qaato dhismihiisa oo ha la dadaalo oo walaalaha reer Göteborg oo kale ha lagu daydo haddaan dib faahfaahin yar ugu laabto waxaan ka nimid dalka Denmark arrinta waan ka bilownay wayna ka socotaa goboladiisa kala bedelan sida magaalada Jutland iyo Aarhus iyo gobolka magaalada madaxda ku taala Copenhagen culimo fara badan oo Abu Talha ka mid yahay baa kullu u istaagtay dhinaca UK rag uu ka mid yahay Sheekh Ramadan Sheekh Maxamed Shibli ayaa u istaagay waana lagu jiraa hawshaas iyada wayna taab noqon doontaa idamka Ilaahay waxaan leeyahay dadka muslimiinta ay dhageysanaya fariintayda dhageysanhayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala intaad ka baqdaan qof bila aadama oo wax la baro waxyaabaha Allah subxaanahu wa tacaala agtiisa ugu fadli badan bay kamid tahay ummadda mugdiga in laga bixiyo jahliga in laga bixiyo khayrka in loo horseedo waxa wanaagsan la isku kaalmaysto waa shay sharciya oo Allah subxaanahu wa tacaala ummadiisa uu u dajiyay oo ugu talagalay sida darteed waxaan leeyahay dhammaan ha laga qayb qaato dhismahaas iyo hawshaas dadka khayrka jecel ee muslimiinta ah ee muxsiniinta ah khaasatan iyagana waxaan leeyahay walaalayaal ha laga qayb qaato taleefanada aad arki doontaan ee meesha ku qoran nin walba ha la soo xiriiro qofkii awoodi kara $100 qofkii awooda iyo $20 kii awooda iyo $1 kii awooda iyo $10 kii awooda qof walba wuxuu awoodi karo barnaamijkaas isaga dacwiga ee khayriga Ilaahay ugu dhawaado oo ha kaga qayb qaato qof waliba uu og yahay sadaqadu wanaaga ay leedahay waxa ay dhaxalsiinayso aakhiro qof waliba waxa uu leeyahay ee uu ku xisaabtamayo waa wuxuu Allah hortiisa la tago sida darteed ummadaas waxay u baahan tahay in maarta laga saacideeyo oo laga caawiyo dhinaca waxbarashada khaasatan waxbarashada diiniga ah iyo caafimaadka iyo wixii lamida waxaan rajaynayaa inta ay gaadho risaaladan ee khabarkan uu gaadho barnaamijkaas inay ka qayb qaadan doonaan oo ay la xiriiri doonaan hadday gudo u baahdaan iyo hadday dibad u baahdaan waan siin doonaa taleefanadii wayna heli doonaan meel walbana insha Allah tacaala waxaa jiri doona rag aan ku ognahay oo loo xilsaaro oo arrintan ka howlgala annagu khaasatan waxaanu ku howlanahay Scandinavianka oo dhan arrinta inaan gaarsiino oo barnaamijkaas aan kala xiriirno ragga ku nool ee jooga ee muslimiinta iyo khaasatan muslimiinta kale gobolka u dhalatay ee waajibaadka khaaska u saaran yahay intaba insha Allah tacaala waan ula xiriiri doonaa qof walba muslim ama Australia jooga ama Mareykan jooga imaqlaya ama South Africa jooga iyo inta kaleba waxaan leenahay arrintaas iyada loo dhaqaaqo oo ha laga wada qayb qaato waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh